السلام عليكم أصحابتا muuqaalkan waxaan idinkugu sharaxayaa sida loo xareysto scholarship-ka Romania. Ugu horeyn Romania scholarship-keeda sanad walba ay soo diisaa. Marka hadda waxaa la soo daayay scholarship-kan bishii la soo dhaafay 2022 December dhexdeeda. Marka deadline-kiisu wuxuu ku eg yahay oo laga rabaa inaad buuxiso intaan la gaarin bisha Maarso kowdeedu ku eg yahay. Marka 1 Maars hadii la gaaro wuu xirma macnaha. Marka intaan la gaarin waa inaad buuxisaa. Ugu horeyn waxaa sameynaysaa marka waxaa buuxin karo qof walbo haysto shahaado dugsi sare ah. Bachelor aad dalban kartaa, master degree aad dalban kartaa, PhD aad dalban kartaa. Marka ugu horeyn waxaa soo gelaysaa website-ka studyinromania.gov.ro linkigana hoos kugu reebay eeg. Marka ugu horeyn waxaa sameynaysaa marka website soo gasho sidana ku soo baxayso. Waxaa leedahay account malihi macnaha muhiimad marka koobaad waa inaad account samaysataa oo si aad xogtaada u gudbiso. Marka waxaa leedahay I don't have an account. Marka halkaas ku dhufato wuxuu kuu soo qabanayaa hadduu alla ku idmaayo inaad xogtaada buuxiso. Halkan wuxuu kaaga soo qabanayaa meesha koobaad inaad first name waa given name magacaaga inaad ku qorto sida Maxamed Axmed Saadaq Cali sidaas oo kale inaad tiraahdo. Kana waa last name waa magaca awowga oo ugu dambeeyo inaad asigana halkaas ku qorto. Email address-ka waa email-ka laga rabo inaad mataqaanaa aad ugu digtoonaato. Waa email aad taqaano oo muhiim ah oo hadhowto haddii xataa telefoonkaada mataqaanaa telefoonka laga kacsan karto. Waa email-ka haddii lagu doorto lagugu soo diri doono. Password waxaa sameynaysaa mataqaanaa inuu ka koobnaado. Password waa inuu ka koobnaadaa wax loo yaqaano 3 shay waa inuu ka koobnaado. Xaraf weyn, xaraf yar iyo lambar iyo mataqaanaa symbols calaamadaha yararka waa in soo kooban yahay. Tusaale ahaan oo kale ga oo xaraf weyn ah ayadana oo xaraf yar ah iyo lambar iyo calaamadahan symbolska ah waa inuu mid kamid ka koobnaada. Waa in password adag waa macnaha inaad meesha ka dhigtaa. Verify mar labaad ku celi waa password-ka. Sidoo kale qaybta mataqaanaa waxaa waaye authentication-ka waaye. Waxaa la hubinaa inaad tahay computer inaan ahayn board aan ahayn. Marka waa inaad gelisaa calaamadahaas meesha way ku yaallo waxaa kugu qoran WBJMK waa in halkaas gelisaa. Ka bacdi marka halkaas dhammaysto waxaa leedahay tiga halkaas saaraysaa. Kadibna waxaa leedahay create account. Marka aniga already hore u samaystay account-ka waan ka soo laabanaa. Marka create dhahdo wuxuu ku leeyahay verify email-ka verify garay email-ka waxa lagu diraa mataqaanaa code. Midaasna muhiim waaye inaad ogaatid. Meeshan marka email-ka imaato ku samaysatay meeshan kugu soo dhici ma code mataqaanaa meeshan caadiga kugu soo dhici ma. Muhiimadu waa inaad imaato spam halka spam ku qoran tahay. Ka bacdi halkan uu kaaga soo dhici doonaa. Mujida automatic meesha ku qoran tahay kugu qoran doontaa. Lambarka waa kan mujida verify ku leeyahay marka. Ka bacdi marka email-ka samaysato oo halkaas ka samaysato ka bacdi waxaa samaysaa email-ka halkan geli. Aniga already marka email-kayga iyo password-kayga aan samaystay halkan gelina marka isku soo noqonaynaa. waan soo geliyay marka page-ka koobaad san waa. Page-ka koobaad muhiim waa inaad akhrisid. Waxaa ku sheegi doonaa application process-ka maraysa. Waxaa buuxinaysaa mataqaanaa personal data macnaha qofta shakhsiyadaada waxyaabo ku saabsan information-kaada buuxinaysaa. Ka bacdi waxaa soo upload gareynaysaa mataqaanaa documents-kaada. Ka bacdi waxaa dooranaysaa jaamacadda. Ka bacdi waxaa fiirinaysaa application-kaada aad soo bixiso u yaallo. Indana mataqaanaa jawaabta sugi doontaa. Haddii lagu aqbalo oo mataqaanaa select loo dhaho study in Romania maraysa marka waxaa waaye Romania wax ka soo baro waaye aad. Marka waxaa leedahay start halkan start ayaa leedahay application-ka bilaabeyna si digtooniya marka halkan ugu fiirso. Qaybta koobaad oo before you begin lagu yiri waxaan akhrinaysaa macnaha waa wax quseeyo waxaa tahay EU mataqaanaa member ayaa citizen tahay waxyaabahaas waa marka waxaas oo dhan tig wada saar maya waay maya waxaan dhan ma iibe marka wada tig wada saarto halkaas marka tig wada saarto
حتى I understand ده marka okay computer hadaa haysato waa soo gali kartaa computerkaasi fiican u fiican waliba halkan waxaa sameynaysaa marka waa qaybta koowaad personal informationka aad iyo aad ugu taxadar magacaaga oo given name-ka ah marka magacaaga sida baasaboorka kugu qoran ayaa halkan gelinaysaa sababtoo ah baasaboorkaaga wax ku qoran iyo halkan islaadaan waa first name-kaaga waa Maxamed Axmed oo kale waa Israa'iil labada shay Israa'iil ka bacdi last name waxaa ka dhigtaa magaca awowga sida baasaboorka ku qoran qoraalkan iska sax tan labaad halkan imaanaysaa marka waxaa gelinaysaa aabaha magaciisa maxaa waaye waa sidoo kale Axmed mataqaanaa Maxamed halkaas soo geli qaybtan waxaa waaye mother name ayadana first name keeda waa marka waxaa leedahay sida su'aalahan oo kale Asha Ali sida macnaha ayadana magaceeda af Ingiriisana u gelinaysa ayaa sida Caasho leeyahay ama Aisha halkan Aisha ka dhig sidaas ay ku qormataa hooyada magaceeda halkaas aad gelinaysaa waa sida dokumentigeeda ku cadiya sababtoo ah dokumentiga warqadda dhalashada waxa ku cad magaca hooyada iyo magaca aabaha sidaas ay u gelinaysaa sexy waa macnaha waxa tahay waaye haddii aad female tahay haddii aad male tahaba waxaa taa meesha gelinaysaa qaybtan ayadana waxaa gelinaysaa birth date of birth macnaha waa xilliga dhalatay tusaale ahaan oo kale waa sida baasaboorka ugu qoran weliga allaha baasaboorka tixraac tusaale ahaan oo kale waxaa leedahay ani hadda tusaale ahaan u buuxbuuxinaya bismillah 1920 waxaa sameynaysaa dadka ugu badan 1999 meelahaas waaye 99ka waxaa dhasho kale tusaale ahaan bisha labada bisha koowaad 1992 okay civil statuska tahay waxaa tahay ma single tahay ma married tahay single laho weliga allaha xitaa hadaa married tahay single in aad ku fiican single ahaw laakiin dadka ugu waaweyn oo dalbana ma taqaan si PhD oo kale dalbana waa in married lahaan sababtoo waa wax qusay moogtaa halkaas single iska dhaho hadii kale shahaadada guurka lagu weydiina meeshan waxaa waa iyadan waa optional waa ka tagi kartaa laakiin waa inaad ku qortaa waa muhiim waxaa lagu leeyahay occupationka shaqadaada macnaha hadda waxaa leedahay kale tusaale ahaan accountant ah xisaabiye intee ka shaqeysaa markaa waxaa ka shaqeysaa tusaale ahaan waxaa ka shaqeeyaa leedahay waxaa ka shaqeeyaa leedahay kambaniga ka shaqeysa magaciisa waa inaad taqaanaa haddii aad dhowto lagu yiraa kambanigaas maamulkiisa nasi aan la xiriirin markaa dhowto interviewga maray markaa kambaniga magaciisa ah ka shaqeyso oo aad dhowto aad telefoonadiisa wixiisa heli karto waa muhiim waxaa leedahay kale waxaa ka shaqeeyaa shirkadda Samtel oo kale Samtel magaceeda dhameystiran halkaas geliya tusaale ahaan unbaa ka wadaya next step de marka qaybta labaad imaato ah address and citizenship macnaha addresskaada iyo meesha diganta oo addresska ah iyo citizenshipka tahay qaybtan oo country wadanka ku dhalatay laga rabaa Soomaaliya leedahay Soomaaliya waa ku jirtaa halkii aad ku dhalatay sida baasaboorka ku qoran iska fiiri waxaa dhici kartaa Muqdisho waa sida ku qoran mar walba waxaa raacaysa dokumentigaada wax ku qoran passport wadanka baasaboorka la citizenshipka tahay wadanka baasaboorkiisa uu yahay macnaha baasaboorka haysta wadankiisa iyo maxaa kee waa adoo Soomaaliya waxaa laga yaabaa inaad ku xariisan karto Kenyan oo daa Kenyan baasaboor haysto marka waa inaad wadanka baasaboorkiisa ku xariisan rabto waa inaad halkan Ingiriisiga Soomaaliya leedahay haddii aad baasaboor Soomaali haysato meeshan serial number baasaboorka numberkiisa waxaa ku yaala meesha mataqaanaa waxa weliga allaha baasaboorka waxaa ka horeeyo xarafaa ka horeeyo badanaa Soomaaliga waxaa ka horeeyo B marka waa sida ku qoran baasaboorkaaga ayaa gelinaysa halkan B oo kale wixii lambar raacsan wuxuu noqonayaa inta badan mataqaanaa waxa waa ugu yaraan asal leeyahay waa 6 lambar marka tusaale ahaan unbaa u gelinayaa
eber 2 92 24 55 saas camal waa. Marka fiiri ay geli baasaboorkaaga meeshan ayadan waxaa ku qoran baasaboorkaaga xilligii la soo saaray date of issue. Marka waa fiirinaysaa xilliga la soo saaray wuxuu noqon karaa oo kale tusaale ahaan 2022 bishii afraad bishii koowaad afarteeda. mar walba sidii uu qormay iska hubiyaa date ku soo qorma. Kow waa DD waa date month meesha m-ta waa dhaxda waa y-dan waa yarta waa. mar walba waxaa soo hormara marka maalinta intan maxaa ku qoran ayada waxaa laga rabaa date of mataqaana xilliga uu dhaca baasaboorkaaga. tusaale ahaan wuxuu dhacaa leedahay 2025 tusaale, laakiin mar ma dhihi kartid 2025 haddii 2027 doonanay tusaale baa ka wadaa 2027 uu dhacaa bisha koowaad saddexdeeda taas oo kala dhigi kartaa. baasaboorkaaga sida ku qoran iska xaqiiji xilliga la soo saaray baasaboorkaaga iyo xilliga uu dhaca uu ku qorantaa. halkan waxaa waaye meesha aad degantahay waxaa deganaha leedahay tusaale ahaan waa meesha aad degantahay yaa iska xaqiiji wadanka aad degantahay Soomaaliya. hadhowta waxaa laga yaabaa in laga habo warqad CID marka wadanka aad degantahay iska xaqiiji wadanka aad degantahay meelaha waa deganaha dhihin. Muqdisho aad leedahay meesha magaalada ka sii degantahay magaaladaas. meeshan waxaa waaye postal address waa addresskaada dhammaystiran inaad geliso halkan tusaale ahaan oo kale street number country iyo postal code. marka intaas macnaha Soomaaliya ma lahan laakiin adiga sida u fudud meesha degan tahay oo kale gelinaysa tusaale ahaan oo kale waxaa deganaha leedahay waxaa deganaha leedahay Gubta Faasila Naynile Faasila marka waxaa leedahay Soomaaliya. postal code kan waxaan dhihi kartaa 252. marka qaybtan ugu dambeyso Soomaali addresskeedu badanaa sida wadamada kale ma aha. marka waa address sida aad ka dhigato mar walba sida rabtaa ka dhigi kartaa addresska waa laakiin address oo macnaha macquul waa inuu noqoyaa. citizenship halkan waxaa imaanaysaa wadanka citizenship ka haysato Soomaaliya waaye Soomaaliya. intaas waa inaad dib ugu laabataa ay hubisaa mid waa inuu hubisaa waa xog muhiim ah waa. next step aad leedahay okay qaybtana laga rabaa inaad tiraahdid wax aad baranayso maxay yihiin ma bachelor mataqaana master degree ma PhD dadkan ugu badan waxaan u maleynaa oo dalbana scholarship waxay u badan yihiin master iyo mataqaana iyo bachelor. hadda waxaan ku saleynaynaa inaad bachelor haysto ama master degree dalbanayso oo arday jaamacadeed ahata. tusaale ahaan marka qaybtan waa qaybta study-ga iska fiiriya aad iyo aad u ballaaran waa qaybta la rabo inaad wax badan inaad ka xaqiijiso. master degree aad dalbaha dhahday mataqaana do you need a Romanian preparatory year lagu yiri ma u baahan tahay preparatory year-ka oo Romania. preparatory year macnaheedu wuxuu yahay sanadka koowaad inaad diyaar garowga luqadda waay. marka Romania tagtid waa inaad sanadka koowaad luqadda barana aad dhahdo kabacdi labada sano saddex sano ay qaadanay marka hal sano oo ah mataqaana luqadda barato iyo 2 sano masterka baranay sidaas waa inaad u kala xisaabisaa. waxaa leedahay marka yes aad leedahay calaamada soo furaysa yes aad leedahay u baahanahay preparatory year-ka ah. qaybtan kale yar sug iskaan gareynaa qaybtan kale marka waxaa waaye muhiim waaye bachelor-kaada waxaa waaye mataqaana grade uu yahay waxaa la yiraahdaa CGPA waaye. marka boqolkiiba inta ka CGPA-ga jaamacadda waa hubi kartaa waa shahaadada jaamacadda ku yaala qaybta transcription ku yaala transcript-ku ku yaala. marka GPA-ga qoray oo meeshan wuxuu ku yahay tusaale ahaan oo kale 3.5 ata 3.5 marka jaamacadda waxaa u degsan wax la yiraahdo levelka ugu sareeyo
oo CGPA-gaada oo jaamacadda ugu sarreeyo qofta A+ markay tahay CGPA ugu sarreeya qaadatay ma ogtahay qaybtana marka wuxuu yahay qaybta oo marka halkaas ugu sarreeyana jaamacaddaada grade-ka ugu sarreeyo iyo mataqaanaa grade-ka aa keentay marka loo eego meeqaa marka oo Romania ahaan ka Romania marka lagu saleeyo 3.5 meeqay ka noqon kartaa tusaale ahaan oo kale jaamacaddaadu 3.5 baa keentay Romania marka loo eego systemkeeda waxay noqon kartaa 7.00 7.0 noqon kartaa tusaale ahaan oo kale hadda waxaa keentay 4.5 waxaa wadataa jaamacaddaada mataqaanaa grade-ka sidaa daraadeed Romania wuxuu ka noqon karaa mataqaanaa 9.0 isfaana u maleynaa mar walba waxaa sameynaysaa sidaa u ogaato jaamacaddaada intaa ka wadato CGPA-ga waxaa sameynaysaa waa soo eegaysaa waa iska hubinaysaa kabacdi waxaa sameynaysaa level ahaan meequu ka yahay marka loo eego Romania marka CGPA-gaagu hadduu yahay 3.5 waa 7.0 hadduu 4.5 oo kale tusaale ahaan uu yahay waxay noqonaysaa 9.0 hadba wuxuu yahay ku xirantahay marka waxaa sameynaysaa sida u xisaabiso qaybtan xisaab yar kaaga baahan tahay waxaa sameynaysaa sida u xisaabiso jaamacaddaada CGPA-ga u degsan oo ugu sarreeyo iyo Romania mataqaanaa CGPA-ga u degsan oo ugu sarreeyo ayadana waxbarashadeeda ayaa isku qaybinaysaa marka wixii ka soo baxo labadaas ayaa waxaa ku dhufanaysaa CGPA-ga haysato tusaalahan 3.5 haysataa meeshan waa CGPA-gaada oo tahay kabacdi waxaa leedahay jaamacaddeeda meeqa u degsan tusaalahan jaamacadda waxaa u degsan 5 jaamacaddeeda kale 5 u degsan waxaa u qaybinaysaa CGPA-ga u degsan Romania waa 10 hormari 10 loo qeybshay 5 2 way moogtahay lagu dhuftay 3.5 majida si 7 ku soo bixi haddii aad 4.5 awadatid waxaa ku dhufanaysaa 10 lagu dhuftay 5 loo qeybshay halka 5 labo lagu dhuftay 4.5 saasay noqonaysaa mar walba CGPA-ga jaamacadda u degsan waa inaad ogaato kabacdi Romania inta wax u degsanba sideedaba waa 10 waayo CGPA u sarreeyo Romania laakiin 10 waayo marka wuxuu ka noqoyaa ku qoraysa halka wax badan ku dheeraana meesha waxaa imaanaysaa dibloomadaada wadankii tahay shahaadada iskuulka waa laga hadlayaa meesha iska fiiri halkaana muhiimad ugu weyn inay tahay halkan waxaa weeyaan curriculum vitae waa la yiraahdaa waa CV waaye CV-ga waxaa ku qoran inta badan waxaa la rabaa inuu 4 MB u yahay wax ku qoran waxaa waaye introduction adiga kugu saabsan iyo mataqaanaa meesha deganta oo kale address-kaada oo kale uu ku qoran yahay sidoo kalena uu ku qoran yahay jaamacaddaada magaceeda iyo sanadada baranaysay iyo iskuulka sanadada baraysay haddii aad khibrad leedahay waxba soo shaqaysay waa CV ku qosaya waaye waa PDF ahaan u diyaarsanaysaa halkaas soo gelinaysaa tan labaad oo ayadana waxaa waaye aad sameynaysid oo laga rabo documentiga ah waa birth certificate la waa warqadaada dhalashada halkaana soo gelinaysaa ayadana sidoo kale waxaa sameynaysaa warqad passport-kaaga waxaa lagu yiri horta mid soo gelinaynaa tusaale ahaan tan oo kale iska soo xareynaynaa aniga muhiimaddu ugu weyn waxaa weeyaan aan sameynayo tusaale marka waxaa sameynaynaa Romania scholarship-ka kale tusaale ahaan aan leenahay CV-ga kala soo xareynaa CV-ga oo soo xareeyay waxaa kala soo xareynaa mataqaanaa warqadda dhalashada marka aniga isku mid ka wada dhiga sababtoo ah adiga waxaa laga rabaa inaa kala duudin laakiin oo warqadaasi ku tahay adiga mataqaanaa mid sidoo ku tahay inaa ka wada dhigtid ma fahanta marka waxaa ka wada dhigayaa tusaale ahaan oo kale anigu hal mid ka wada dhigaa waxaan ku dhahay waa inaad soo upload gareysaa CV-gaada oo warbixintaada ku qoran tahay labo waxaa waaye inaad soo upload gareysaa mataqaanaa birth certificate warqadda dhalashada 3 waa inaad soo upload gareysaa waxa loo yaqaano passport-kaaga oo 3 page ka kooban warqadaada dhalashadana waxaa ogaataa waa inay sadhicin warqadaha waxaa jira xilli ay dhacaan aydan waa inaad iska hubisaa inay dhacdo in kale passport-kaaga waa inuu 3 page ka kooban yahay
waxa waaye page-ka koowaad 3 page waaye, macnaha 3 page waa inuu ka kooban yahay page-ka caadiga ah iyo qaybta dambe oo asigana ah mataqaanaa passport number ku qoran yahay iyo qaybta kale ayada wax ku qoran yahay. 3 page waa inuu ka kooban yahay passport-ku. soo upload garee asigana tusaale wax dukumiinti u eg asigoo kale soo upload garee. muhiimadu waxaa ka rabaa inuu dukumiinti la ugu jiro si uu gudbaa doonto. Okay, isla asigiiba ku soo celinaysa bahashan oo tigidhkaas aan ku wada gelinaa. qaybta muhiim ah warqadda marriage haddii aan marriage taa waaye waxyaabaha gaduudku saaranta waxyaabaha waajibka ayaa tusaale ahaan oo kale halkan waxaa laga rabaa soo upload garee shahaadadaada dugsiga sare. iska fiiriyaa waa inay tahay front and back waaya horay iyo mataqaanaa iyo dhabarkaba. shahaadadaadana waa inay tasdiiqsan tahay. shahaadada waxbarashada dugsiga sare waa inay kugu tasdiiqsan tahay oo shahaadada dowladda inay tahay. soo upload garee ayadana sida xaqiiqa iska fiiri iska hubi. soo upload garee waxaa sameynaa wax tusaale soo gelinaa kan soo geli. Okay, halkan imaad ayadana shahaadada transcriptiga oo mataqaanaa iskuulkaaga oo mataqaanaa form 1 ilaa form 4 oo kale aad diyaarsanaysaa. asigana waa inaad transcript ka samaysataa. waana kulley iskuul walba uu leeyahay transcript. asigana halkan kasoo upload garee inuu kugu jiro asigana dukumiinti ahaan muhiim ah. Okay, waxaa sameynaysaa warqadan iskandana inta noo soo geli. Okay, halkaas asigana midkaas noo soo geliyay. waxaa samaysaa halkan qaybtan ayadana waxaa soo upload gareynaya shahaadadaada jaamacadda bachelor diploma waaye shahaadadaada jaamacadda oo degree-ga. ayadana waxaa iska fiirisa waxaa lagu leeyahay front iyo back labada dhinac ayadana waa inta tasdiiqsan tahay. marka badanaa shahaadooyinka laba qaabaa jiraan. shahaadada oo warqadda caadiga ah waa inaad front iyo back ayada keliya ah file ku diyaarisaa. shahaadada waa inay mataqaanaa noqoto tan jaamacadda keligeed. transcript waa inaad ka reebtaa ayada. shahaadada oo wejiga koowaad ah iyo dhabarka oo tasdiiqsan labadaas bisa soo upload gareena file keligiis ah. waa inay hal file ku jiraan yaa labadooda. warkaasina faanta umaleynaa. Okay, waxaa sameynaysaa marka soo upload garee. Okay, tusaale kii horena ku soo celi. tusaale baa ka rabaa ayaa waxaan xaqiiqada ma ahan aniga hadda soo upload garoonayo. transcriptiga jaamacadda asigana waa inuu tasdiiqsan yahay. kulley haddii wasaaradda geeso lagu tasdiiqiyay waa ina asigana asigoo hal file ku jira soo mataqaanaa soo upload gareysaa oo jaamacadda oo bachelorka. Okay, file noo soo upload garey asigana oo caadi iska ah. waxaa sameynaysaa kaas halkaas waaye intaas waa muhiimadu. intaas le waa muhiimadu. kow waxay ahayd inaad CV-ga soo xariisid. 2 waxay ahayd inaad warqadda dhalashada. 3 waxay ahayd baasaboorka. 4 waxay ahayd mataqaanaa shahaadada dugsiga sare. 2 transcriptiga shahaadada dugsiga sare. bachelorka ayaa waxay ku ahayd 5. 6 waxaa ku ah bachelor transcriptiga. Okay, kabacdi waxaa leedahay next step gudub. waxaas adigana soo upload gareyn stepka kale ma ugu gudbi kartid. kii ugu fududeed ayaa maraynaa. Okay, study in Romania selection jaamacadda wax ka baranaysaa dooranaysa halkan. muhiim ma ahan jaamacaduhu inay muhiim ma ahan jaamacadda rabta adiga dooran kartaa midii ku qanciso. jaamacadaha Romania ku yaalo dhan waa baari kartaa. marka jaamacadii ku qanciso ayaa dooranaysaa. Transvalia dooranaysaa midaas ku qoran tahay jaamacadaas. waxa ka baranayso waa inaad doorataa continent leedahay. waa laakiin adiga ku salay doono waxa rabto. meeshan jaamacadaas wixii bixiso dhan meesha ku jiraan. inta ugu badan waaya qaar aan ku jirin oo laga yaabay inay yihiin mataqaanaa lacag waaweyn oo aan lagu soo diray scholarship-ka. marka ka eeg adiga waxa rabto inay meeshan ku jiraan. accounting-ga markaad doorto waxyaabihii hoostiga accounting-ga hadhow ka dhexli doonta waa sii dooran doontaa.
laakiin muhiimaddu waa inay faylka filliga aad rabto waa inuu meesha ku jiraa. haddii jaamacaddaas aa weyso jaamacadda labaadooda inaad doorato laga rabaa iyadana. halkan waxaad leedahay jaamacadda caanka weynta ah dooraneynaa oo ah Bucharest oo jaamacad ku taala meesha caasimadda University of Bucharest awda waatan of Economic Studies. jaamacaddaas iyadana waa jaamacad weyn waaye dooro kulliyadda ayada isla kulliyadda ku cesho. marka halkaas waa muhiimad intaas waa doorata faylkaas. waxaad leedahay meesha ugu dambeysa marweynaa oo ah preview your application. waxaa eegtaa applicationkaaga last yaa joogta ma jida wax kaa qaldan haba yaraatee ma lahan uu yiri. kow magacaaga inaa Maxamed Axmed yahay isku hubi magacaaga, aabaha magaciisa hubi, mataqaanaa hooyada magaceeda hubi, waxaa tahay hubi ma male iyo female kee tahay isku hubi inaa qalada in kale, taariikhda dhalashada isku hubi, waxa ka shaqeyso meesha ka shaqeyso, countryga wadanka mataqaanaa u dhalatay, intee ka diganta intee ka dhalatay meesha ku dhalatay isku hubi ayadana, mataqaanaa baasaboorka wadanku yahay hubi, nambarkiisa hubi, xilliga la soo saaro hubi, xilliga uu dhaca hubi, mataqaanaa waxyaabahaas oo dhan iska hubi. qaybta labaad imaad waxaa sameysaa university iska hubi, tan labaadna iska hubi. dukumeentiyada si muhiim ah iska hubi halkan aad iyo aad iska hubi. waxaa dhahdaa review dheh iska hubi. halkan waxaa ku qoran almost congratulation waxaa ku qoran macnaha hambaliyeen ah. halkaas markaa marayso haddii mataqaanaa aad dhahdo I understand the application rules, faylkaagu wuu dirmayaa, waan ku dhufan doonaa, faylkaasu wuu dirmi doonaa. marka waxaa sameynaysaa adigoona waxaad hubin ha ku dhufan. haddaba iska fiir meeshaas adigoona hubin ha ku dhufan halkaa. marka faylkaadu wuu dirmi doonaa, halkaas ayaa tig saari doontaa. anugu ma rabo inaad diro oo wax beena waaye dukumeentiyada soo upload gareeyay. marka waxaa sameynaysaa halkaas ayaa ka hubinaysaa waxaad dhan intaas lee waayo. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullah.